muhiimadda ciidamada badda waa ilaalinta biyaha iyo xuduudaha Soomaalida waxa ayna hore qalab ahaan u lahayn jireen 25 markab oo sawaariq dul saaran tahay iyo doomo dheereeya. taliska ciidamada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed waxa ay qayb ka yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwooda loogu kalsoon yahay kana bixi kara in ay biyaha Soomaaliyeed ka difaacaan cadawgooda soo jireenka ah. guud ahaan xeebaha dalka Soomaaliya oo 2 jeer ka weyn cabir ahaan dhulka ayaa waayadan dambe hooy u noqday maraakiibta sida sharci darrada uga kalluumaysata ku aasida qashinka haraadiga sunta warshadaha dalalka hore u maray ku daadiyaan iyo kooxo burcadbadeed ah. waxa ayna sheegeen saraakiisha hogaamisa ciidamada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed inay la dagaalamayaan kooxahaasi gurta kheyraadka dabiiciga ah ee dalka Soomaaliya. gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed Admiral Guud Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo khudbadiisii ugu dambeysay ay xilwareejinta uga sheekeynayay taariikhda uu leeyahay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed sida uu ahaan jiray iyo haatan isha ka muuqato ee farbarnaanta ugu horeyso. Admiral Guud Faarax Qare oo hore u ahaan jiray taliyaha ciidamada Mariniska dalka ayaa khudbadiisii ugu dambeysay ay xilwareejinta ciidanka ka sheekayay taariikhda ciidanka marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray awoodihii uu lahaan jiray waajibaadkii loo egmaday baahida uu qabay in badda Soomaaliya aanay lahayn xuduud la og yahay. saakiyalkan oo ah taliska ciidanka badda oo laga maamulo dastuur ahaan xeebaha Soomaaliya oo dhan ayaan u fadhinaa anagoo taliya ciidanka badda ee difaaca xeebaha ah ayaan saakay waxaan rabaa inaan soo jeediyo khudbadaydii iigu dambaysaan dhihi karaa ciidanka dhexdiisa inkastoo shaqo kale aan u socdo ee dowladdu leedahay. bismillaahi raxmaani raxiim. mada'yari ciidanka waxaan ku soo biiray 1968 anoo xidigla noqday 66 ku soo biiray kacaanku markuu dhalinayay sarkaal hal horin wataanay 100 iyo dhowr nin ayaan watay. ciidanku waa dhismayay ha ahaato ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan ciidanka dhulka badda cirka intuba waa dhismayeen. sartaan gadaasheena oo la dhisay 1979 siddeetankii iyo 81 waxaan ka ahay taliya xigeenkii ciidanka badda xafiiskii koonahaas galbeedka oo ku yiil 82 taliyihii ciidanka baddan halkan ka ah xafiiskii koonaha bari oo ku yiil dabaqa saddexaad. shalay waxaa ii waramayay taliyaha cusub aan rabo maanta inaan xilka ku wareejiyo wuxuu igu yiri adoo halkan taliya ka 83 anoo xidiglaha la ii kaa keeno yiri magaca waxaad igu tiri magaca maday baa la yiraa oo war maday meher bay dhabaata magacaas bay dhabaa la baxday ha waxaad ii tiri bay dhabaa loo bedelo barbara soo dalka u soo barto. waxaan aad ugu faraxsanahay ardaydii iyo saraakiishayda anigu aan soo tababaray inay saaka igala wareegayaan xilka aad iyo aadaan ugu faraxsanahay. kuwa dhinacayga fadhiyana nimaanan taliya u soo ahayn ma jiro. taas horta farxad weyn bay ii tahay. aan marka taariikhda ku laabto maalintii dowladda burburaysa ciidamada Soomaaliya halkay joogeen waa la ogay laakiin waxaan rabaa inaan isku taago ciidanka badda 25 markab ayaan lahay oo qaar ka mid ah sawaariikhda ugu dambaysa adduunka u wado qaarna ay wadeen torbeedaha waa sawaariikhda badda ku dhex socota kuwana madaafici waaweyn ay wadeen kuwana ciidanka dhulka ee taangeeda ayaa laga saaro xeebaha laga dejiyo ayaan lahayn. maalintaa burcadbadeed ma jirin wax badda naga wasakheeya ma jirin wax baddeena khayraadkayna ka xadana ma jirin guud ahaan wax balaayaa ma jirin. badda Soomaaliyeed gacanta ciidanka badday ku jirtay sidaasaa dowladda Soomaaliyeed siyaadadeedu baddeeda ay uga sugnayd 200 oo miil badeed oo u degata 3333 shimbir aanan raalli kayn kuma kor dega jirin. dayaarada 6 dayuuradoodna waan lahayn subax kasta saan u baxda waxay soo sheegtana markab durbadiba haadaya iyo dayaarada haadaya iyaa jiri jir
nasiib darro wixii dalka ku dhaca waa ku dhaceen annaguna waa nugu dhaceen mar dambe waxaa ciidanka laygugu yeeray 2007 mudane madaxweyne cabdullahi yuusuf allah naxariisto abaanduulaha xoogga dalka soomaalida layga dhigay 2 sanaan ah hawshii socotaana wax ka wadan aan hogaaminay 2009 sheekh shariif ayaa mar kale taliyaha ciidanka badda ii magacaabay taliyaha ciidanka badda 82 aan ku lahayna 25 markab 12 urur oo kuwii badda laga tuura ah 15 bar ilaaloo badda ku teedsa 5 dugsi oo wax lagu barto iyo intaasoo dhismo ahay oo 82 taliya ka ahay ilaahay wuxuu qadiray 2009 in sheekh shariif yiraahdo meel cad ka bilow meel cad halkaanan gambar dhiganay Soomaaliya yaa bad rabaan dhahnay nasiib wanaag maanta rag badanaa noo jooga oo tababaran oo badda wax ka qaban kara 5 doomood ayaan leenahay oo shaqada ku jirtay muddo 2 sano 3 sano ah 4 doomood haddeed ayaa turkiguna siiyoon la wareegnay oo dhawaan iyaguna badda soo geli doonaan maanta waxaan joognaa in naloo ballan qaaday sartaan in naloo dhiso midaan taliska ballan qaadkeedii waa haysanaa dekedda in naloo dhiso saldhigga ciidanka badda ee xukumi doona insha allah barbara baalki hobyo iyo baraawe xafiisyadiisa in la dhiso meesha askartu jiifa leh iyo dekeddii ay ku soo xiro lahaayeen maraakibta 4 ee walaalahayna Turkiga noo keeneen idina waa naloo ballan qaadanta dhawaanay bilaabanaysa dugsiga ciidanka badda in la dhiso ee la qalabeeyo ayadana waa naloo ballan qaaday maanta intaas oo dhan raggi waa noo joogaa 9 doomood waa noo joogtaa aqooniyo tababar waa leenahay waxaan sugaynaa oo kale hadda oon rabnaa inaan ku darno 6 markab oo meel dhexaad ah oo wata 12 doomood oo kuwa aad u dheereeya ah ayaan ayaguna sugaynaa sanadka soo socda dhammaadkiisa inay soo bilowdaan shirkad Hollandeesaan kula heshiinay reer Yurub oo dhanna waa daba yaalaan waa nala og yihiin waxaan rajaynaa dhawaan inuu noo yimaado 18 markab ayaan dhihi karnaa haddana 9 haynaa saaka waxaan uga tegayaa meeshaan insha Allah 27 markab iyo doon oo ballan qaadan oo qaarna yimideen qaarna soo socdaan ayaan uga tegaynaa saaka meesha inta haddii la helo ay gacantayna ku soo dhacaan waxaan qabaa 90% iyo wax la jira dhibaatada badda naga haysata inay joogsadoo burcbadeedna aan la arki doonin khayraad badeedo la xadana oo dhammaan doono xumaanoo dhan iyo wasakhaynta badda iyo dadka ku safraya sharci la'aan badda kontrabandada hubka isaga gudbaya waxaasoo dhan inay joogsadaan oo arrin sharciyeed noqoto badduna ay hoos timaado ummadda Soomaaliyeed ee dawladdeeda ay noqon doontaa insha Allah inta dabadeed waxaan rajaynayaa oon ka codsanaya saraakiisha dhinaca fadhida taliya ku-xigeenka koobaad taliya ku-xigeenka labaad saraakiisha waaxiya iyo taliyaasha iyo ciidamada joogta inay si wanaagsan oo niyad same ah ula shaqeeyaan taliyaha cusub oo isaguna aan duurka ka imaan isla ciidanka badda ka soo dhex baxa waa saaxiibkood kolba nin ayaga ka mid ah madaxa ahaa lahay waa in asaga lala shaqeeyo waa in gacan la siiyo khibradii aad kasbateen 5 sanood meesha ugu soo horeyseen inaad u gudbisaan anigu faarax ahaan meel dheer ma tegin xafiiskay waa kan eridiinan ku yaal halkaan aan fadhiyo wuxuu u jiraa 50 mitir u jiraa waxaan madax la iiga dhigay hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed haddii aan kor ka ilaalin jirna haddaan ciidan badeedna haddii baraktika aan ku hogaami jirna ciidanka saaka waxaan u baahan inaan hoos u galon cilmi ahaan aan badda u ogaano ku hogaamino war badda maxaa khayraad noogu jira khayraadku maxay kala yihiin ma mid noolaa ma mid dhintayba waxaan ka wadaa kuwa aan noolayn
waxaa loola jeedaa batroolka gaaska macaadinta mineraalska loola jeedaa maxaa noogu jira badda halkay hadday ku jiraan imisay la egyihiin halkay uga jiraan waa arrinta hawsha hadda la xil saaro la iska rabo baddaan 20 cilmiya ku jiro kala badan midaan war badan ka haynana ma jiro xataa xuduudaha baddayna ma lama hayo anaga Kenya xuduud la ogyahay ma lihin aniga Yemen xuduud la ogyahay ma lihin aniga walaalahayn Djibouti xuduud la ogyahay ma lihin aniga Seychelles xuduud la ogyahay ma lihin baddaan sheeganayna wasaaka xuduud nooma leh maxaa noogu wacan ogaa la'aan iyo cilmi la'aan noogu wacan waa arinta keenta in la abuuro hay-adan anigana madax leeyahay dhigo hay-adaasan u socdaa idinkama foge ciidanka baddow wax alla wixii tabar iyo khibro aan leeyahay iyo talo aan la taliyahay taliyaha cusub amaan gacan siinayana waa iga diyaar idinkana waxaan idinka rajeynaa saan hore u sheegaba inaad maaragtay gacan siisaan si ciidankayna badda uu u gaaro halkii uu joogi jiray inuu gaaro ayaan rajeynaynaa oo bilowday markii ciidamada Soomaaliya asaaskeedu bilowday oo Talyaaniga oo dalka ku soo noqda 1950kii asagoo ka wakiil ah unada uga wakiil ah inuu Soomaaliya gaarsiiyo xorriyad 10 sano muddo ku saban markaasaa waxa bilowday ciidamada la asaasay ciidamadii Soomaaliya asaaskoodu markaasoo bilowday ciidanka baddana waxaa la bilowday koox la dhihi jira kooxdii mariinada oo xilkeedu ahaa arrimaha dekedaha soo xiridda maraakibta sii sagootinteeda hubinta nabadgelyada dekeda umuurahaas ay qaabishanaan jireen ilaa laga soo gaaro 1960kii iyo 4tii oo lagu soo wareejiyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hase ahaatee 1965tii 10kii February ayaa mara 6 markaba ugu soo horeysay ciidanka baddu ay ku soo xirteen Berbera maalintaas oo ahayd 10ka February 1965tii ayaa loo tirshaa in ciidanka baddu dhashay ayaa loo tirshaa hase yeeshee xididiisu waa dheeraayeen waa mahadsantii بالحقيقة أنا مددي أن عيدا كان لو مقعابة والله ما يكون يصقال كي مانتا بالحقيقة وعن سلانا وحوين بعد قبتها أنا وحانا هين أما أنا وهاي سركالك كلي لو بدلي ميلان عدنا جوجي أولي عيدا كأبور رجع كلا عيدا ميل جوجا ما راح لوجا دقاي وحابة أقول هيد ميل عد وحكى بالله intaan ka soo saar iyo maraakibtan idin sheegin number 1 muddadii annagu hadda alkaan joognay 350 qofood ayaan tababarnay 5 doomood oo hubaysan ayaan diyaarinay oo noo joogta runtii waxaan idin sheegaa dawladda Soomaaliyeed intay ku leeyahay waa koobneed shacabka Soomaaliyeed ayaan ka keenaa runta idin sheegna ayaan wax kasta ka keenaa gacan ugu siiya xataa doomo waa nalsi dhismada halkaan aad ka muuqdo iska aad u jeedaan dawladdu ma samayn dadka deriska ama badda xiriirka la leh ayaa noo sameeyay xafiisyada oon xiriirka fiican la leenahay okay annaga marka waajibkeena asaasiga oo hadda waqtiga aan hayno oon soo kordhinay dekeda xamar oo ugu asaasan dekedaha dalka ama jamhuuriyaddan ama dawladdan wax ka soo galaan nabadgelyadeedu waa arrin muhiim annaga ee amisom waa qaybsanay dhinaca koonfure waxaa mas-uulka amisom dhinaca waqooyina annagaa mas-uulka ah waxaa jira halkaan xamar ilaa 5 dekedoodoo macmala oo mid la arkaba aan waardiye ka hayno maxaa jira waxay xiriir la leeyihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed xamara laga taakulaya risaas ku taakulay hub ku taakulay raashin ku taakulay lacag ku taakulay shidaal ku taakulay mid la arkaba ishaan ku haynaa admiraal Faarax Qare xilli oo xilka ku wareejinay taliyaha cusub ee ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed Madax Ufuro ayaa soo hadal qaaday in ay dib ku qabaan dhul ay si sharci darro ah ku bixiso dawladda hoose ee Xamar wuxuuna ugu dambeyntii ciidanka u rajiyay guul iyo in waajibaadkooda ay gutaan wax qabadka inay ka mid tahay aan qabanno runtii waxaa kaloon howl weyn ka haynaa dhul xeebeedka ilaalintiisa xil naga saaran yahay wasaaradda gaadiidka badda ayaa bixinta dhul xeebeedka
meel badda ka fog 450 ilaa 450 oo halkaan uu ka mid tahay dhulka ku yaala oo halkaan laga bilaabo koonfur la aado raaskiamboni waqooyi la aado xuduudda walaalahayn Djibouti aan la leenahay 450 wasaaradda gaadiidka badda bixi karta ciidanka baddaana mas'uulka ah annagu hadda xamar lamadiisa dhinac ayaan aad iyo aad mas'uulugana dhib fara badan waa naga haystaa wasaaraddana waa kala haystaa sababtu maxay tahay horta dalkan waxaanba kala baxsanayn munishibiyo maxay mas'uul ka tahay wasaaradda kala maxay mas'uul ka yihiin buuqa noogu weynoon maalin kasta ciidanka baddu xalliyo waxa ka mid ah dhulka munishibi ay xeebaha ka bixiso idoon xaq u lahayn iyo dimaniyaale oo dhulka bixiso lama warqodan oo timaada tii munishibi waa tuura markay sharciga sidaas ninkina waxaan dhahnaa raallah ma dawdiina waxaan dhahnaa ma jirto marka sidaas awgeed nabadgelyada dhul xeebeedka ilaalintiisa sharci ku soo dabaalidiisa ciidankan ayaa ku howlan marka waxyaalahan qabanay ma koobi kare intii yareedoon joognay laakiin bal haddaadna sii weydiisaan waxaa laga yaabaa wax kale inay soo baxaan waa mahadsantihin taliska ciidamada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed waxaa la soo gudboonaaday duruufo badan oo ay ku samreen dhibaatooyinkiina u dulqaateen waxa ayna haatan diyaar u yihiin ilaalinta xeebaha dalka sida maraakiibta ku howlan kalluumaysiga sharci darrada ah iyo adeegyada kale ciidamada difaaca badaha Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay xasiloonida ku soo celiyaan dhammaan xuduudaha badaha iyo biyaha geyiga Soomaaliya Muuse Maxamuud Jiiso حيل كرانايو وحانا هايكي سبرا إيغا نعبو ما أكلي مرنبا إنو سوكلو كاشان لكوا أنيغا دودها كيسيهيو بدها قود كوديو إركان كاب ميرياي دودها كيسيهيو بدها قود كوديو إركان كاب ميرياي كيغا غركاهاي ilkayga ana gutay adana arimaha gudu anigu iga rabsadano gargaarkooda aniga xooga muro ugo ay nabad sugitayo sirtoon waxaan ahay kuntabay ana nacab kawgabada kalankal ana qaan xogtoodana soo gudbiya kalgaarashada xeeladeed wiyaal soo baranayo daaraanka boodaya cadowga dibadiyo gudaha in badan gabagabo ku riday nin kale goobiyal ku dilay kuwana waa goobaya anigu waxaan ahay waalid gamuro kuyaal badan soo jire waxaan ahay aan gablamin debigood ciidamada dalkeena anigu gabana aan dhaliyo gurbood weeya aan korsheeye debigood ciidamada dalkeena anigu gabana aan dhaliyo gurbood weeya aan korsheeye أنا سوكر داديه أما سوكر دبرو أنا سوكر داديه أما سوكر دبرو أنا قد شدا حلكودا وطببري قدهان أنا قد شدا حلكودا وطببري قدهان أمني قال قدها دلكينا إني قعالك بلشدا نفي ما نبات قلال أنا يقول إنتهي